وصحبه أجمعين وبعد marka hore ilaahay ayaa mahadsan subhanahu wa ta'ala wax badan oo la soo koobi karo inuu mahadsan yahay ay ugu horeyso caafimaadka ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaanka islaamnimada aqliga iyo wax badan oo aan la soo koobi karin wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha hadana dad muslimiin ah ni'mada ilaahay lama soo koobi karo mar labaad iyo mar saddexaad waxaa mahad mudan wujuudan quruxda badan dabcan ka socda iskuulada iyo jaamacadaha dhaqaatiirta goobaha waxbarashada kala gedisan isbitaalada iyo marti sharafta qiimaha badan leh qof walba maqaamka iyo muunada iyo darajada uu magac ku fadhiyo ayaan ku salaamayaa inta kadib waxa mahad mudan maamulka mama Amina General Hospital iyo mama Amina muxuu ahaa Isha College of Health Science runtii duruufo wadanka iyo xaaladaha jiro aan dareemi karno qof walba uu dareemi karo abuuray fursado waxbarasho aniga markii aan meel ka soo qayb galo meelaha oo kale marna waan farxaa marna waan murugoodaa xilli waxaan soo martay wadankan intaan ka baxnay Muqdisho aan u lugaynay wadan kale dabcan 20 maalmood 30 maalmood aan soconay iskuula aan jirin jaamacada aan jirin goob waxbarasho aysan jirin hatta diyaarada aysan jirin macnaha diyaarada hadda imaadan ma sha Allah ayaamii ugu horeeyay jaadka ugu horeeyay oo dabcan nafteeda ugu fariisan jiray gambar marka waxaan leeyahay maanta alxamdulillah qof asoo gurigiisa joogo subaxdii inta uu shaqeysto maalintiina uu wax barto runtii waxaan leeyahay waa wax aad u qiimo badan ragii suurtageliya marka aad ay u mahadsan yihiin waliba gaar ahaan dadka inay yeeshaan xirfado runtii aqoon in la yeesho way fududahay dad waxa arkaysaa PhD haysto master haysto bachelor haysto iyo aqoon badan ay leeyihiin laakiin adduunyada waxa aad looga qiimeeyaa sidoo kale qofka inuu xirfad gaar u leeyahay inuu harqaan toban karo inuu wax duri karo inuu wax dhayi karo inuu wax maxay operation sameyn karo ganacsi yar inuu samaysan karo xirfad u gaar ah waa iyadoo aqoonti guud uu leeyahay hadana si gaar ahaan inuu xirfad gaar ah uu leeyahay waa muhiim waliba hadii laga hadlaayo muxuu ahaa ishaga caafimaadka ma ugu soo jirtaba aniga marar dabcan aan hore u sheegay waxaan soo bartay first aid ama gargaarka degdeg ah dhakhtar weyn ah macnaha maran intaan meel ka baxnay waxaan aadnay rixla la aadi jiray Suudaan iyo markaan joogay waxbarashada admid si loo duray iyo faleebis loo suray kariya qaar hadii la isweydiin xataa wax badan ka aqoon laga yaabaa laakiin rag badan oo markay intay meel ka tageen meel tageen malaari ku wada dhacday qaarkoodii tacbaan in noqdeen jabigi ilan jabi Masar meel u dhawaal aaday dhakhtar weyn oo waxaan noqday oo ilaahay xalki oogyahay anoo kaliya aan qaan bas loo diray iyo faleebis loo diray macna waa dareemi kartaa qiimaha shayga yar ee maanta mar waxa dhacdo qof xanuunsan in inta laga wado la geeyo meel 2 kiiloomitir u jirto si uu soo qaato cirbad kaliya xanuunka loo sii qaada macna soo waxay ahayd dabcan in la helo skills-kaas ama xirfadahaas oo kale meel walba guri walba iyo meel walba la joogo in la helo waa muhiim marka mama Aasha muxuu ahaa College of Health Science iyo ragii mama Amina College of Health Science iyo ragii maamulkeedii iyo macallimiinteedii iyo muxuu ahaa intaba si gaar ay u mahadsan yihiin waana soo dhaweynaa runtii xafladaan ay soo qaybgalna farxad weyn ay ii tahay si gaar ay ii farx gelinaysaa waayo dadka Soomaaliyeed maanta wuxuu u baahan yahay hore u sheegay xirfado inay yeeshaan waliba gaar ahaan caafimaadka oo wax badan aan maxay aan u dhintaysannahay waxaan aad ka soo kale aan u dhiirigelinayaa head of department muxuu ay sheegay nutrition oo kale runtii waxa aan ka sii dhimanay kamid tahay nicmo badan iyo khayraad badan iyo wax badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay ayaa jirto aan ka door bidayno inaan faleeba isticmaalno ama sharooba isticmaalno ama wax kale waa bari hor dabcan waa darsantii waxa qofka viimta qaada leeyahay maxaa yeelay nutrition u baahan tahay viimtada wixii laga soo sameeyo oo dabiici natural aan haysanaa anaga hada qudaarteena tusaan haysanaa waxa far badan oo wadankeena uu leeyahay ayaan haysanaa oo ahayd in wax badan laga faa'iideysto laga yaabi lahaa haddaan si rasmi ah u isticmaal lahayn cudurro badan iyo waxyaalo badan maanta haysanin amaba haday jiri lahayn dhibaatooyin far badan aan ka marayno muxuu ahaayay nutritionka dartiisa inaan ka gudbi lahayn marka insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa waxa loo soo jeestay skills-ka in la sameeyo gaar ahaan waliba caafimaadka engineering-ka xirfado qofka inuu sameeyo marka insha Allah ta'ala waxaan leeyahay waa waqtigeedii xilligii loo baahnaa ay ku soo aaday college-ka ama ku soo aaday health science ah dad badan inay ka faa'iido doonaan subhanahu wa ta'ala waa rajeynaa inuu Ilaahay u fududeeyo sidoo kale ragii hore u helay branjigii hore branch 1 iyo 2 iyo 3 hada maanta waxay joogtaa reer hodan insha Allah waxaan rajeynayaa in sameysha ku sii ekaan hadii afgooy la geeyay Madiina la sii hodan la sii rag kale ee naftooda u sii baahan in la sii gaarsiin doono ayaan filayaa taas waxay daliil u tahay baahida jirta marka inay aad u badan tahay marka insha Allah mar labaad iyo mar saddexaad wujuuhda quruxda badan ee meesha ka soo qayb gashay ee soo fariistay mama karibu sana iyo rag kale insha Allah waxaan rajeynayaa inay maxay ahayd in talada meeshii waxaan soo aragnay inaan gudbino oo qaadno oo ka faa'iideysano hal arin oo soo qatibi lahaa iskuulo iyo jaamacado iyo macaahid iyo collegeyo waa ka jiraan wadanka waxa la islaamiga waxay tahay laba arin waa koow quality in la ilaaliyo tayada gudoomiyaha hore u sheegay hadii tayada la helo tayada ayada hadlaysa macnaha uma baahna in la sharaxo
ميديا إن لجيو ذك إن وحلا شيء وما بحنا أرضي كصوب بحي برشة نحتاجها أسات تصالح تيداس إيو سيستم كمسؤولية دي سئل لقاده ما أنت لبعتن مقعد جرتو ومقعد كجرتو طبعا يا في عن يا حن أنا كمان هلا يوم كي تيلا هلو أساس الشيء يقول لي ورنو حقيقة كتبت وحلو يدينا فيدباك وكيد وحلا ما عملوا كولج أوف هيلث ساينس وكيمت تاسمكم حلا هي ترتم بدن ورق بدن إنك هوري 20 سنة 30 سنة إنك هوري أيها الجاي أبى سنة إلا بس إنه جوهود إن الجسوا جارو أردبينا إيشان معنا يومنا إكويشن مشترك حدود إن شاء الله هذا مع سنتين أختي بدم وجاوين هاي تصمسوا كوبا يقف والبو مقام كي مجع وكفدي أيام سلام سهر وشيء هذا مع سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.